وزيرada hay'adaha beesha caalamka madashabka halka fariisnimo waa salaamantihiin salaan kadib mudane wasiir waan kaaga mahadcelinayaa maadaama aad nagu casuuntay shirkan oo dabcan aan ugu hadlaynaa arrimo aad u muhiim ah oo masiiri ah dalkan horumar u leh taabanaysana yani mustaqbalka dalka uu leeyahay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda dabcan yani waa inta badan waxaa nagu soo dhamaada يعني waraaqadaha dhamaan la soo sameeyo ay soo sameeyaan municipalities-ka presentationkii ugu horeeyay la sameeyay aad ayuu muhiim u ahaa wuxuu taabtay caqabadaha saxda ah meesha ka jira hadda qof haduu u baahan yahay passport waa dabcan inuu la yimaado documentiska hadda laga hadlayo ugu horeyso dhalashada sugnaanta iyo dabcan CID-da hadda waxaa macquul ah in maanta qof inta baxo oo tago dawladda hoose mid rabta ahaato haddii heer federal heer maamul goboleed uu soo qaato dhalasho idda uu qoran tahay haddana isla maalintii inta baxo meel kale tago mid kale haddana soo qaato taas micnaheedu marka waxay ku tusaysaa inaysan uusan jirin yani database xogtu ay ku midaysan tahay in la mideeyo dhalashooyinka dhammaantooda muhiimadda gooniga ay leedahay sida hadda aan u jeedno xogtii aan midaysnayn qof walba uu raba inuu yani oo awoodo maanta inuu soo qaato xogta asaga uu rabo oo aysan jirin meel tixraaco laga tixraaco ay naftirkeeda waa caqabad weyn taas naftirkeeda waxaa caqabad ka sii dhigaya maadaama dalku uu ku jiro yani xaalada amni oo dabcan ay tahay qasab in la ilaaliyo identity qofka uu qaadanayo waxaan isleeyahay initiative-kan hadda bilowday wuxuu dabcan qayb weyn ka geysan doonaa yani horumarka aan yeelan doono waxaa kaloo ka sii muhiimsan kulley barnaamijkan wuxuu fogaan korka leeyahay ama uu caawin doonaa jiilka soo socda sababtoo ah muhiimaddu waxay tahay hadda qofku markuu dhashaa isbitaal ku dhashaa registration meesha ka soo bilaaban doona haduu leeyahay laakiin waqtigan xaadirka ah dabcan qofku wuxuu tagayaa meeshii uu ka qaadanaya dhalashadii form baa la buuxiyaa waxbaa la iska weydiiyaa saxna maaha marka naftirkeedu municipalities-ka iyo goobaha laga qaado dhalashada waa muhiim inay haystaan dad khubaro u ah dabcan yani sida daadu kale hadda for example haduu wasiir fiqi ma adu yiraahdo anigu 25 jir ah cid ka yeelaysa bayraatay malaha marka anagu caqabad weyn nagu tahay si aan taas aan ugu hortagno inta badan waxaan sameynaa yani gudi anaga noo gooniya sababtoo ah si aan u ilaalino sumcadda passport-ka uu leeyahay waxaan ugu qasban in qofka yani passport-ka uu wato iyo daada uu leeyahay inay isleeyihiin haddaysan islahayn dabcan ay naftirkeedu waa ceeb gooni ah oo passport-kina ceeb ku ah dalkina ceeb ku ah marka waxaan isleeyahay initiative-ka hadda la bilaabay yani wuxuu ka geysan doonaa yani garab weyn in ay waxyaabahaas ay saxmaan ka hay'ad ahaan waxaan isleeyahay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda hadda waa hay'adda keliya dabcan rekoorka inta ugu badan haysa oo ilaa dalku dabcan intuu soo xoogeysanayay registrationka sameynaysay hadday ahaato dhinaca passport-ka hadday ahaato weliba dhinaca dabcan sheeg airport xuduudaha dalka laga soo galo laba system aan dhinaca taala marka waxaan awoodnaa waqtigan xaadirka ah inaan bixinno daato ka soo bilaabato waqtigii passport la bilaabay ilaa waqtigan xaadirka ah qof walba passport qaatay xogtiisu waa ay xareysan tahay waa la heli karaa marka haddana waxa kale aan diidanaa waxay tahay inta maanta qof uu baxo asoo passport haysto inta buu hadan dhalasho ku soo qaato magac uusan lahayn oo hadan inta liimaad yiraahdo waxaan u baahanahay inaan dhalashadan aan wataa ama ID-gaan aan wataa waxaan rabaa inaan xogtan aan passport aan ku qaato ay naftirkeedu waa caqabad kale marka mar walba waxaad ku xisaabtamaan hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda inay garab tahay wixii xog aad ka horreyn aan haynana inaan la wadaagi doono haduu ilaahay aad oo maastiin